كورن هداي قالوا كسو دوشو ودن إسلام قعن أي كو سيان ضد مسلمين حلوة سؤال كتشوي سومين سؤال حلوة كتشوي وحاتي ربنا يرحم على السيسن وآمن سن إن جهادك كسوهر تشيدو محادك هران لهاي أرنتا جهادك أي شيء يانسي ما تشيرا horta jihaadka qof muslimiin ma diidi karo erayga markaad sax u qortana waa waxaan lahayn waxaadan garanayn ha ka hadlino erayga jihaadka diidan tahay gaal baa tahay way erayga ma sahlana waayo jihaadka intaasoo nusuus kitaab iyo sunna leh ee dirwatu sanaami islaami baarki u sareeyay islaamka nabigu ku tilmaamay ee dadka shuhadadiisa 100 darajatin fil jannati ilaahay ugu diyaariyay waxaasoo nusuus oo kitaab iyo sunna iyo hadiga nabiga diidan tahay dagaal baa tahay way marka masalada aan ku saxee waxay iyagu jihaad u yaqaanaan baa diidan tahay jihaad inuu yahay taa waa dhici kartaa taasi waa suuragal su'aasha saa loo dhiga mid kale aan idin sheego ama qof caama saa u dhiga ama qof laqdabo iyo mardabo wada saa u dhiga hadalka kan caamada waa kii hore kan kale sideedaba marka tiraahdo hadii aan ku iraahdo salaadu sidan kuma asaxdo oo tiraahdo salaadu diidan yahay ka waran haddaan ku iraahdo salliga nabiga sidan looma qaado oo tiraahdo nabigu diidan yahay markaan niri awliyada lama bariyo awliyo dhan bay diidan yihiin baa leeyahay ونفس المسألة مركان نري ورش جهاد كان قضايات كانت كهذا ليسان شروط بيلا هاي وحال الجهاد كان لديدية نك عن دوري أما عن دليل حجوه إن شروط إنه عدايا كولا ضاده وإنه ضد كبار لميو وجرا هذا الجهاد بالديدية سيد السوفيات وديه شرتي نبي قال لديدية أولياء لديدية هوجا يوبا يدي أكلتوي مسألة النحر كذا هاللود ده وح عن كهذا أنا جو حاوي أحكام الشريعة عدو مدول بالشروط بيلاده ويسدوا شروط بيلاده هذا كعب بلغ سيسون كل هذا تم ويسمعها بويسد ديني هذا صلاة النبي يقول مركو يصلي فإنك لم تصلي ماذا تكنين ما صلاة النبي يقول ديني معناه شروط دي وان كيني وي هذا زكاة الفطر بحسون كل هذا كان وحبة كبتشرات بحسي معايا الشروط دي ما هيسد وترى هذا زكاة الفطر وكسر كذا نفس الصورة وي قف مسلمي جهاد مديدي كره لقدبدا iyo su'aasha umada tamwiiha inta laga daayo waqaa'ic muayyana laga hadlaya oo la isku haya shuruudii jihadka ma dhameystiratay mise maaha sawaab iyo khatana suuragala hal laga hadla tafaasiisheeda sheekadan hu hada beenta dadka laga daayo tawa masalada koobaad mid kale aan idin raahdo جهادك أي شيء يعني ما تشيران ده وحن كتجوابي لها وحاس جهاد ما يهينا تراهدان قاعدة جود بين إنسان يا جهادكو لما جانب بمهمة إن هذا يكتو مركل لقى الصوت قال يا مسلم بالله كلا بحي دين بالله قد نصرين يا مركل لقى الصوت كوهرت شروطي أبواب الجهاد لقى الربي وين لقى هلا شروطي أصل قاعد مركل لقى هلا لبا وإنه مقصد كي جهاد كاللوتش ديي وحقيقنا قال كوانو لدى قالمي كلية جهادكم النقط جهادك وحالوتش ديي لتكون كلمة الله هي العليا هدي عمل كانت سمايسا لتكون كلمة الله هي السفلى وكان يو جهادك شرعي وأمر رب اللي قد وانشري معها هدانك وقب صدانكو إرادة عمل كانت هايسو إسلامكي وبابيه ميل ما قارسينين جهاد باديدان تاي هاي دهنه إيه عدى حجة إسلامكي إنه قرقارو قولو تري أنا أنكو حداي إسلامكي إنه بابيه وحني أنك هذا الله لتكون كلمة الله هي العليا بالنقطة الدجال كان يمن نقن أنك وضع هذا الله لكن هدان كوير هذا ورنيه وجهاد كوا شرعي دين باللو قرقارة عمل كادو هذا وداي دين تيادتك وبابيه halka waxa ka muuqata waxba ka qaldano ki sharci u jideeyay maaha ha jihadka diidantay anna waxaan ku leeyahay
mukhaalafaadka sharciga ee hoosta ku wadataad qarinaysaa tanna boodhkaad isku qarinaysaa boodh isku qaris weeye marka su-aashaasi ninkii raba ama waxyaabahan jihaad ma aha niri jihaada intuu masaa'ilkeeda keena ha caddeeya miiskaa soo saaro masaladani soomaali keliya kama dhex taagna dunida muslimkoo dhan xaalad taagan weeye su-aashan soomaali keliya dhexdeeda wax taalla maaha meel badan bay taallaa oo ninkii wax ka hadlaba laleeyahay jihaadkaa diidanta kii sidaa lahaa waxoogay markuu yar caqliyaystay yidhahda war waxyaabaha qaarkood aan ku qaldanayn isagay kuwa ka dambeeya waxay dhihi jihaadkaa diidanta khadka soco markaasuu qaylo afka furan maxaad ka furan shalay adiga la akhrina kama tadinu tudaana weeye ayib kadib wuxuu yidhi ninkan saa'ilka wuxuu yidhi waxaan ku weydiinayaa waxaa jira nin nala degan oo aan tukanaynin si kastana waan ugala hadalnay tuko waan dhahnaa laakiin salaada adinka miyaa igu leh idinka miyaa igu leh ayuu la soo taagan yahay marna wuxuu leeyahay ilaah hana soo hanuuniyo marka ninka camal maxaan ku suubinaynaa laba arrimood suubiya horta ilaahay u barya inuu soo hanuuniyo ninkan haniini hidaayo u baahan yahay ilaahay u barya marka labaad lacalla waqti qalbigiisa waxgala inaad waafaqdaan baa laga yaabaaye waanada ku wada intaad ku wadi kartaan waaniya hadal keliyana meehe haddii wax la siiyey iyo meel la geeyey iyo waxyaabo kaloo lagu soo jiidi karaa ama cid loogu yeeray iyo ay isleedihiin markaad qof aad la degantihiin dabeecadiisa barataan ay isleedihiin wuu ku soo yar hanuuni karaana xataa xoola u hura mu'allafatu alquluub ban xalay marre xoola in la siinayay intaasun weeye wax ka badan ood samayn kartana ma jiro ood aha inaad la dagaalanto ood feertantaan laga yaabo inuu afar ili kaa tuuro markaas ilaa meeshaad joogtaa hadda ma la oran karaa culimadiinna qayb weyn ayaa ka tihiin jahawareerka ummadda hadalkan iskaadu akhri waaye ma la dhihi karaa haa waa la dhihi karaa waa baryena sacaba laguma qariyo inay culimmadu jahawareerka khilaafkoodu iyo qaarkood quluwiga jawaanibta kala duwan u gala mushkiladda qayb ka yahay ma qarsoona mana inkiri karno laakiin mid iga ogolaada idinkana yaa culimo ah in dib loogu noqday u baahan tahay dad badan baa markii kursiga iyo xooluhu masaajidda galeen cagaha soo dhaqday oo aan tukanin horaan idinkaga sheekeeye ee la yidhi reer baa sanad ducaystay oo xoolo qashay qur-aan inay akhristaanna way rabeen sanad bay munaasabadii masaajidka ka dhigteen hilbihii iyo cuntadii nin iyo wiilkii oo duurka ka yimid oon tukanin oo reerkii ka mid a yimid war xaggee weeye weliimadii iyo hilibku masaajidka wayaa la yidhi cilaaraabe haaweydii hilibkii masaajidka ay la galeen cagaha soo dhaqu yidhi waxa weysaystay iska dhig waayahan dambe saan masaajidda la isaga joogay dadkii diintay u soo yar noqdeen qof diintii iyo masaajidda lagu yar dhex arkay bay kursigii gashay oo doorashada xataa Kenya ka dhacay Soomaaliya diinta aan wax u qaban in lagu doodo Soomaaliya arag halka markay martay nin kastoo dan kursi iyo muuqashiya ka lahaa caguhu soo dhaqday masaajidkuna soo galay cimaamad iyo qamiis buu suuqa ka soo gatay intay ku jabantahay in lacag intii la bixiyo suuqa laga soo gato boqof mamnuuc ka tahay jira qamiiska in la gaabsadana harqaan la loo tagi garkana waaba tiba ku yaalo bil laba bilo saddex buu u baayay ninkii Ilaahay siiyay kintana waa daayay qamiiskana waa soo gaabsaday safka hore masaajidka iyo irdihiisana waa lagu arkay wuxuu sameeyay culimo samaysay
haddii ninka raggii culimmada ka qabta ay yidhaahdaan culimmadii baa iskhilaaftay horta mushkiladaasaa na haysata dhowr nugtaan idin siiyo su-aalahan ka baxadaan rabe 2000 nin markuu dadka wacdinaya axaadiista 40 iyo cumdul ahkaamka looga qoray riyaadu saalixiinka aan akhriyi karin oo dhowr jeer u meerin jiroon ugu celcelin jirnay ba hadda mufti culimada dhan wada aflagaadeynaya oo hebel aanu magacaab ma yaqaan ninkii haddaan iraado war ninkan dadka ka daaya al culimadii baa isqabataan leey xagee culimada iska qabatay ninkani kabuhu soo dhaqday meesha ay ka soo gashay waxa yaala raga culimo oo doodaya bawaagi maxkamadaha ay dhasheen nunkadkana soo maray waxa kamid nin baa wuxuu leeyahay baab waxa la isu khilaafsan yahay baab weyn oo abwaabta diinta aan la fahansanayn wuxuu rabaa inuu xukumo ummadda iyo culimada wax khilaafsan kirsan baab aqiido weyn beenan fahmin oo khasheekh oo baabkaasi muxuu yahay al balaya wal baraya way wala wal bara buu dhihilayaa magacii baabkii wala wal bara buu sixilayaa ninka waa sheekh haddaan niraahdo dadka ka fadhiisa al culimada waa iskhilaaftay dadnimada dhibka waxa nagu wadeedin ka weey culimadii mucaarad badan iyo calaasir badan ku sameeysan marka annagu mushkilada khilaafka iyagu ka wadaada inuu qayb mushkilada ummadda kamid yahay wax jira way annagu aan reebno adaa qaldan aan isdhaahno mushkilada taalana waxay tahay safkan iskhilaafsan aad arkaysaan in badan culimo maaha in badan waa dadkii cagaha iska soo dhaqay markay dantii maslaxadu masaajida ka soo gashay inta iyadana nukadka aan kaga baxay baasha waan qarsanay aad noogu fogeynina way tan qeyl la baxna waxa ay soo la jiifiyana banaan loo dhihin